السلام عليكم أصحاب تقاليد أي كحر الجنال كين برهان براقة كسلوا هدية تامر كفور الجنال كا سبسكرايب نصار فيديو قد ياكيشن إنه لايك جري إنه نسيشر جري سيد أصحاب بدنا يوار كان فيديو جينا وداودان أصحاب تقاليد عاو حايدين هيا لو شيكو ميدو حكو سابسن تاعي وحي أنيجي برهان أنيجي وياك بنا أنت أدونك أنا لا أسعدي مدة كلنا وحي كو سابسن تاعي qofnaha quursan waliga ma ogid awoodda u qarsoon aan ku bilaabo sheekadii aniga igula yaabka badneed intii adduunka joogay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday waxaan aadnay gabar aan saaxiibanahay ayaa waxay ku dhashay isbitaalkii ayaa tagnay isbitaalkii markaa tagnay gabadhii aan booqanay ayaa waxaan arkay aniga burhaanana waxaan arkay nin gabadh isbitaalka gabar saaxiibada ay ku dhashay ayaa nin asagana waxa ugu dhashay gabadha markay waxay dhashay gabar ayay dhashay gabadha marka muuqaal ahaan idin tilmaamo waa gabar dheer oo qurux badan oo midabkii maarinka oo Soomaalida u badan yihiin leh ninka gabadha cunugta ka dhalana waa nin gaaban oo madow oo choqolafsan markaas ayaa waxa dhacday gabadhii iyo hooyadeed waxay ku fadhiday kursi sariirta oo maternity-ga lagu dhalo kursi agyaalay ku fadhida maamada gabadhiya marka waxay tiri waxaa rabaa musqul waxa u baahanaa musqul u baahanaa gabar kale la joogtaa gacanta ka qabatay wixii geysay musqusha u waday hadda musqusha u gaday ninkii asaga ahaa ayuu sadeediis ay meesha fadhido ayuu soo istaagay markuu soo istaagay buu wuxuu yiri cunugti yarteed hadda dhalatay intuu kor tagay buu wuxuu yiri bal day waxa ii dhashay foolxumo badana lacagtii aan ku guuri lahaa waa inaan hadda gasac soo gadaa oo ku aruuriya lacagtii aan ku guuri lahaa balday la qabigaas ninkaas gabadhaas usaas leeyahay asaga maybe asaga ayay foolxumada ka keentay because asaga gabadhu waa gabar dheer oo qaranjo oo qurux badan mid maariina leh laakiin asaga ayaa madow oo gaaban oo choqolafsan marka cunugtii dhalatay oo haddeertaan dhalatay oo la kala garanayn inay qurxan tahay inay foolxun tahay cidina kala garanayn ayuu intuu soo dul istaago wuxuu leeyahay balday waxay ii dhashay foolxumo badana lacagtii aan ku aroosti lahaa gasacdan hadda intaan soo qaatay waan ku gurayaa oo ku aruurinaya sidii ila cidiga guursanaysa maba lahanbay waa sheekadii igula yaabka badneed inta aniga adduunka aan saarnaa waxaan dabcan xataa inaan u jawaabo maalintaas ninkaas balse gabadha saaxiibadaan ahayn ayay iga celisay oo igu tiri iska daa burhaan iska dhaaf sidii aan uga aamusa sheekada kaleeto ay idin haya asxaabta qaaliga waxa waaye sheekadii ahayd qofna ha quursan waliga moogid awoodda u qarsoone maalin ayaa waxaa jiifay geed harweyn hoostiis ayaa waxaa seexday libaaxii asagoo ay hurdadii meel fiican u marayso ayaa waxa u yimid dooligii ayaa korkiisa ku boodbooday markii dooligii korkiisa uu libaaxii ku boodbooday libaaxii ayaa kacay libaaxii markii uu kacay dooligii buu qabtay markaasuu dooligii wuxuu yiri alla mudane isii daa maanta ka bacdi kuguma boodboodi doono haddii aad isii daysidna maalin ayaan abaalkaaga ii gashay aan kuu gudi doona libaaxii ayaa ku qoslay asagoo ku jeesteesaya ayaa wuxuu yiri war ma adiga ayaa abaal ii gudi doona sidiinu ku sii daayay maalin maalmaha ka mid ah ayaa libaaxii asaga ahaa waxaa qabsatay qola ugaarsata ah waxay ku rideen shabaq waxayna ku xireen geed weyn dooligii asaga ahaa ayaa wuxuu ka arkay meel dheer libaaxii oo geed lagu xirxiray dooligii ayaa soo orday markii uu yimid wuxuu bilaabay inuu shabaqii u gogooyo ugu dambayna uu ku guuleystay libaaxiina sidaas ayuu uga soo baxay shabaqii libaaxii ayaa u riyaaqay dooligii waana uu mahad celiyay asxaabta qaaliga murtida sheekada waliga qofna ha qoorsan ma ogid awoodda u qarsoon asxaabta qaaliga intaas ay waqtiga sheekadii ay labadii sheeko ay idin hayay haddii aad ka hesheen videogan ila gareeya asxaabta qaaliga noo sii share gareeya channelka noo subscribe gareeya aad ayaad u mahadsantihiin